madaxweynaha dowladda Mareykanka ayaa maanta wuxuu ka hadlay heshiiska xabajoojinta ee ay kula jiraan dowladda Iiraan. Waxa uu yiri waa mid aad daciif u ah. Qorshaheyguna waxa uu yahay buu yiri Iiraan inaysan hub nuclear yeelan. Waxay soo diyaariyeen barnaamij aan la aqbali kareynin. Iiraaniyiintu waxa ay doonayaan markaa in waxyaabaha qaar ay dib ay u dhigaan. Waxaana ku wargeliyay in xitaa ay nagu soo wareejiyaan waxyaabihii la farsameeyay ee hubka nuclearka. qorshaheyguna waxa uu yahay inaan weerar ku qaado Iiraan haddii aysan ogolaanin waxyaabaha qaar. Khudbad dheer ayuu jeediyey madaxweynaha dowladda Mareykanka oo dhinacyo badan taabanaysay, inkastoo uu adeegsaday hadallo aan wanaagsanayn. Dhinaca kalena gelinkii dambe ee maanta qarax ayaa ka dhacay mid ka mid ah xarumaha muhiimka ee nuclearka, gaar ahaan xarunta Aaraag lagu magacaabo oo dalka Iiraan. dowladda Iiraan warbaahinteeda ayaa macluumaadkan baahisay. Lama garanayo sababta rasmiga ee qaraxaasi. Xogta ku saabsan qaraxaasina aad ayaa loo qariyay. Iiraan waxay maanta u diiday markab laga leeyahay dalka Qatar inuu ka gudbo marinka Hormuz, waxaana la sheegay inuu dib u laabtay kadib markii ay ciidanka ilaalada kacaanka ee dowladda Iiraan ay sheegeen markabkaasi in fasax uusan ka haysan dhanka iyo dowladda Iiraan. Haddaba waa maxay qorshaha cusub ee madaxweyne Donald Trump uu doonayo inuu marinka Hormuz uu ku furo? Sidayna dowladda Iiraan ay keebalada marinka Hormuz lacag uga doonaysaa? Aan ku hormarno mashruuca madaxweyne Trump. haddii aad ogeyd mashruucii hore ee xurriyadda marinka Hormuz, hadda mashruucan waxaa loo bixiyey mashruuca xurriyadda balaas, yacni xurriyad iyo dheeraad. waa qorshe cusub oo Mareykanka uu doonayo inuu ku ballaariyo howlgalkiisii military ee marinka Hormuz, gaar ahaan kadib markii xaaladda maraakiibta iyo ganacsiga shidaalka ee gobolka ay halis weyn ay galeen. qorshahan waxaa loo arkaa markaa mid ka sii xoog badan mashruucii hore ee xurriyadda. madaxweyne Trump markii hore wuxuu yidhi haddii aan ku koobneen ilaalinta iyo galbinta maraakiibta ganacsiga marka marinka Hormuz ay ka gudbayaan, hadda mashruucan wuu ka duwan yahay midkii hore. waa maxay farqiga u dhexeeya marka labada howlgal ee Trump uu ku dhawaaqay? qorshahani cusub waa mid gebi ahaan ka duwan kii hore, waxaana uu kaga duwan yahay wuxuu ka gudbi doonaa dhankii difaaca iyo sidoo kale ilaalinta maraakiibta. wuxuu u gudbi doonaa qorshe kale oo ah in la weerari karayo doomaha iyo maraakiibta dowladda Iiraan haddii laga shakiyo inay usoo dhowaadeen maraakiibta. markii hore haddii la ilaalinayay, hadda wuxuu yidhi maya, ilaalin iyo difaacii waan ka gudubnay, waan duqayn doonaa. waa si lamid a sidii laga fuliyey Venezuela markii doomaha qaar lagu eedeeyay inay waxyaabaha maanka dooriya ay kala gudbinayaan. mashruuca Freedom Plus ama xurriyadda Plusna wuxuu u ogolaanayaa ciidanka dowladda Mareykanka inay burburiyaan bartilmaameed kasta oo Iiraaniyiinta ay leeyihiin ka hor inta aysan xitaa weerarka Iiraan fulinba. tusaale, haddii doomahan la arkay iyagoo dheeraynaya oo maraakiibta Mareykanka ku wajahan ama maraakiibta ganacsiga ku wajahan, waa la duqaynayaa, waana la isku raacay. wuxuu sidoo kale qorshahan uu ballaarinayaa aaggii ilaalinta. haddii markii hore maraakiibta Mareykanka ay ilaalinayeen marinka Hormuz, qorshahan wuu ka duwan yahay oo waxaa la yidhi qaliijka ilaa badda Carabta ayuu Mareykanka ilaalin doonaa wixii hadda ka dambeeya. tan marka waxaa la isweydiinayaa maxay ka dhigan tahay? Mareykanka ma waxay uga dhigan tahay inuu helay taageero dowlado badan oo markii hore diidanaa inay mashruucan qayb ay ka noqdaan? qaliijkii miyay ogolaadeen in baddooda ama xeebahooda la ilaaliyo? dagaalka dhana dowladda Iiraanna miyay iclaaminayaan? waxaa mashruucani soo bandhigay ama aragtidan soo bandhigay madaxweyne Donald Trump kadib markii la tashiyo kala duwan uu la sameeyey saraakiisha ciidanka, xogtana ay la wadaageen ciidanka taliska dhexe ee CENTCOM loo yaqaano. marinka Hormuzna uu galay xaalad hakad ah, maraakiibtiina aan loo ogolaan inay ka gudbaan labada dhinac. haddaba sida xogaha ay sheegayaan, marka 7 ilaa 8 bishan aan ku guda jirnay ee May, wax markab ah marinka Hormuz kama gudbin. 9 May 2 markab oo kaliya ayaa la sheegay inay gudbeen, waxaana la rumaysan yahay inta u dhaxaysa 1500 ilaa 2000 oo markab inay biyaha qaliijka ay ku xayiran yihiin. kuwa badan ba xeebaha Istanbul markaa timaado, gaar ahaan dhanka beerta ee IBB-da iyo deegaano kale, Soomaalida Istanbul joogta ayaa aad u garanaysa maraakiib aad u tiro badan ayaad arkaysaa oo halkaasi ku xanima. ma dhanka Hormuz ayay baakin uga jiraan, mise waa maraakiibtii dhanka badda madow inta kasoo gudbay la sheegay inay Bosphorus ay ka gudbeen oo aan warbixintii hore idinkula wadaagno? waa waxyaabaha la isweydiinayo. CENTCOM waxaa dhankooda ay sheegeen in 58 markab oo Iiraan ay leedahay ku qasbeen dib inay u laabtaan tan iyo howlgalka. 4 markabna waxay sheegeen shaqadooda gebi ahaanba inay hakiyeen. dhanka militariga marka la eego, Mareykanka gobolka wuxuu keenayaa ciidan aad u tiro badan, ma dagaal kale ayaa loo diyaar garoobaya? Iiraaniyiintana dhankooda waan kula wadaagi doonaa tallaabadii ay qaadeen. Mareykanka burburiyaasha nidaamyada difaaca cirka, diyaaradaha sirdoonka, kuwa droniska, diyaaradaha hawada shidaalka ku siiya, kuwa kale dhammaan gobolka ayay kaga sugan yihiin. ujeedaduna waxay tahay in Iiraan la cabsi geliyo,
haddii weerar degdeg ay qaadaanna laga hortago sidoo kalena la xaqiijiyo in marinada dhanka badda dib loo furayo haddii wadaxaajoodyadu ay fashilmaan. dhanka iiraan maxay samaysay? iiraan iyadana waxay dareentay culayskan iyo waxa soconaya istaraatiijiyadii iyo xeeladii dagaalka ayay iyadana bedeshay, waxaanay xoogga ay saareen daroonada iyo gujisyada yaryar sida adag loo adeegsan karayo, kaasoo ay adag tahay in la ogaado. waxaa kaloo ay isticmaalayaan oo ay kordhiyeen doomaha dheereeya ee weerarada degdega fulin kara, daroniska ismiidaaminta ama yani maaragtay maraakiibta yaryar ee daroniska camal ah ee isqarxin karaya, kuwaasoo aad ay usoo saareen tan iyo xabajoojinta. sidoo kalena waxay doonayaan dagaal daalin ah oo awood isu dheelitirneen inay maraykanka ay kaga hor yimaadaan. waatii aan warbixintii hore aan kaga hadalnay caqabadaha maraykanka uu wajihi karo inay qayb ka tahay xeebta dheer, doomaha, diyaaradaha daroon iyo iiraaniyiinta mar walba inay suuragal u tahay inay weerar ay ku qaadaan maraakiibta maraykanka. iiraan waxay doonaysaa inay ka faa'iidaysato marka biyahan ay gacanta ay ku hayso ciriiriga dhanka maraakiibta rayidka iyo cadaadis ay saaraysa maraykanka iyadoo dagaal buuxa aan si rasmi ah loo gelin. warbixinaduna waxay xusayaan marka in ciidamada ilaalada kacaanka xitaa xog cusub la siiyey, awood kalenaba ay ka dhex arkeen marinka hormus. waxaa la leeyahay kulankii ugu dambeeyey ee mujtaba qamanaa iyo taliyaha taliska khaatim alambiya inay arrimahan ay ka wada hadleen, waana tii hadalkii uu jeediyey taliyaha uu yidhi yani cid kasta oo na soo gardaraysata guul lama laaban doonto. waa maxay marka hubka cusub ee iiraan ay ka heshay marinka hormus? waxaa soo baxay macluumaadka ah in dowladda iiraan ama ciidanka ilaalada kacaanka ay heleen fikrad cusub oo warbaahintu ay baahisay oo ah fiilooyinka internetka ee marinka hormus mara. waxaa la yidhi yani waa hub kalaba, waa hubka fiilooyinka internetka loo bixiyey. arrintan waxay la xiriirtaa fiilooyinka internetka ee badda hoosteeda mara, kuwaas oo qaada ku dhowaad 90% isgaarsiinta gobolka khaliijka, islamarkaana gudbiya qiyaastii 30% xogta internetka ee yurub, aasiya ilaa bariga dhexe. hadda marka waxaa soo baxaya in markii hore haddii ay lahayd maraakiibtan ka doonaynaa inay canshuurna siiyaan, hadda waxaa soo baxaya sida telefishinka aljaziira uu baahiyey in iiraan xitaa canshuur ay ka doonayso fiilooyinkan, ama xitaa qalqal ay gelinayaan kaabayaasha dijitaalka ee badda hoos mara. yani dukumdaakum ayaan ka dhigaynaa. waxaan u malaynayaa dhowr jeer inaan idinla wadaago oo kommentiyo xitaa aad ka dhiibateen in iiraaniyiintu ay lahaayeen taatika cusub ayaan la soo baxaynaa, hub cusub ayaan adeegsan doonaa, weerarkeenniina weerar cusub ayuu noqon doonaa. yani markii hore haddii gantaalada maraykanka ay maraakiibtiisa ay ku wajahnaayeen, hadda meel kale ayaan gantaaladeenna ku wajahinay. yani kan marka waa qodobkii ugu horreeya ee bannaanka yimid. tan iyo 2 maalin ka hor markii khaatim alambiya xarunteeda ay ku kulmeen mujtaba qamanaa iyo sidoo kale cali cabdilaahi, ninka ugu sarreeya ciidanka khaatim alambiya loo yaqaano. haddii taas ay dhacda marka oo arrinta internetka lacag laga siin waayo, maadaama hadda hub cusub ay la soo baxeen, yani saamayn intee leeg ayaa ka dhalan karta? saamayntu waxay noqon kartaa internetka in la jaro, nidaamyada bangiyada iyo dhaqaalaha gobolkan carqalad ay ku timaado, hakad weynna uu ku yimaado isgaarsiintii yani 3 qaaradood oo aasiya iyo yurub iyo ilaa afrika xitaa sheekada ay gaarto. hakad ayaa ku imaan doona. taas marka waxay ka dhigan tahay in dagaalka hormus hadda uusan ku koobnayn shidaalka iyo maraakiibta oo hub kale iiraan halkaasay ka heshay, dagaalka dijitaalka, kaabayaasha internetka iyo nidaamka isgaarsiinta caalamiga. ilaa iyo hadda faahfaahinta buuxda ee freedom plus lama shaacin, laakiin khubaradu waxay rumaysan yihiin inuu yahay qorshe military oo aad uga xoog badan midkii hore, una dhow howlgal la doonayo in si xooga lagu xakameeyo marinada badda ee hormus. bal ka waran marka iiraaniyiintu hubkaas ayay haddana miiska ay soo saareen, waxaanay leeyihiin haddii aad isku daydaan inaad awood aad ku furtaan marinka hormus, annagana ogaada wicitaanadii caalamiga iyo xogtii bangiyada iyo farrimii swiftiga iyo ganacsiga suuqyada caalamiga iyo waxaasoo dhan adeegyada cloudka yani daaqaday ka bixi doonaan. shirkada waaweyn arrintan way saamayn doontaa haddii fiber optical la jaro oo kale oo gunta hoose inta badan mara, maadaama marka xogo badan oo dhanka internetka la isweydaarsado. oo anigaba hadda markaan internetka wax ku duubo oo aan xogo badan soo raadiyo ayaan isla internetka idiin soo dhigaa. balka waran haddii gebi ahaanba la waayo, anigoo hadda turkiga ayaan ku suganayo, weyne saamayn way ku yeelanaysaa haddii internetkan yani gebi ahaan la jaro. waan arki doonaa wax walba oo qodobkan ka soo kordha. waa xiisad kale oo cusub oo soo kordhay. barnaamijyadeenna kale ayaana kugula wadaagayaa insha allah.